munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee ururka Ilays iyo gudoomiyaha cusub ay dooratay ururka Ilays oo ka dhacay magaalada Buuhoodle oo ay ka soo qayb galeen bulshada qaybaheeda kala duwan golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ugu horeyntiina waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyihii hore ee ururka Ilays Farduus Suldaan Siciid oo mahad celisay dhammaan bulshada ka soo qayb gashay munaasabadan iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha cusub ee xilka qabtay waxaan kaloo u hambalyeynaya ama soo dhaweynaya ku faraxsana anigoo ah gudoomiyihii hore ururka Ilays 6 bilood ee soo dhamaaday inaan sidii hore oo kala aqlabiyada kan loogu doorto gudoomiye cusub oo 6 bilood ee soo socda ururka haynaya kuna tartamay musharaxiinta mudane Cabdilaahi Cismaan Xaaji Aadan iyo mudane Dhuux Faarax Jaamacadeel Caruus hoggaanka ururka ku guuleystay mudane Caruus marka kulay waa 6 bilood mar walbana way dhacaysaa marka ay dhacdana maalin walba qof cusub la dooranaya qofka cusubna waxa looga baahan yahay sidoo kale marka xilkiisu dhamaado inuu wareejiyo xilka marka aad waxaan ugu faraxsanahay soo dhaweynaya musharaxa soo baxay waxaan u mahadcelinayaa la tartamay ururka Ilays wuxuu ka dardaarmay gudoomiyaha yan hawsha lagu sii deyn ama kan haada ama kuwa iman doona ha ahaade sidii aynu u soo shaqeynay ururka horumar u gaarsiino dhanka kale waxa asaguna halka ka hadlay gudoomiyaha cusub ee ururka Ilays Dhuux Faarax Dheeg asaguna sheegay in uu ku faraxsan yahay xilkan cusub ee loo doortay alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan salaamayaa dadka khiyaarta ah ee sharafta badan isugu yimid qolkan doorashada ka dhacayso anigoo aad doorateen dhalinyarada Ilays والدين هبليين يا سيدي وعنا دولتين يا هذا اللي هو جميل إن شاء الله وأنا إذا شقين الصان وإذا شقين شيء سواء وإذا شقين دمتان وأنا إذا هبليين dhanka kale waxa ayaguna halka ka hadlay marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadan xil wareejinta ah aad u salaamintii kala sharafta leh xildhibaanada golaha deegaanka afartiisanahay ururka dhalinyarada aad u mahadsantiin raggu intuu toobina waa badiyamina waa guulaysaneen oo aad baan uga hambalyeynaya saaxiibkii Caruus waxaan leeyahay guulayso aniga laftida si baan ugu faraxsanahay culays bay fuulahay waa baqay wallaah waxaan aad ugu mahad celinayaa oo aan leeyahay waajibkeedii waa gudatay gudoomiyihii hore ee ururka Farduus Suldaan Siciid aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa hawsha ay soo qabatay iyadoo gudoomiyaha iyo iyadoo xubin ururka ka tirsanba ah muddadii ururkan uu jiray oo ilaa iyo 7 sano ku dhow waxaan dhihi karaa ururkan lafdhabar bay u ahayd iyadii xubnaha kaleba ugu dambeyntiina waxa munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle Cabdifarax Cali Cawiil Dhuux Faarax Jaamac oo caawa si xornimo ah ku helay doorashadii ururka Ilays ka dhex socotay waxaan kale oo u mahadnaqayaa Cabdilaahi Cismaan Xaaji Aadan oo ah xilka ninka laga guuleystay imikana isu soo taagi doona insha Allah tacaala kuwa dambe baan isagana u mahadnaqayaa waxaan kale oo u mahadnaqayaa gudoomiyihii xilka soo hayay 6 bilood ee aynu soo dhaafnay Farduus Suldaan Siciid oo u soo shaqeysay si karti iyo xushmad iyo hufnaan badan ku jirto Maxamed Cali Bile telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Buuhoodle.